السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانيغو walaalkin Akram Cabdullah maanta waxaan inii wada sheeko xiiso badan oo ku saabsan nin qoraa aha iyo haweenaydiisa ama ooriyadiisa oo aad iyo aad iyaduna u xikmad badneed bal wixii kala qabsaday waan arki doonaa balse waxaan ka codsanayaa inta aan sheekada guda gelin inaad soo booqato channelkeena subscribe saarto gambaleelka riixda si aad u noqoto qofka ugu horeeya oo fiidiyooshiina daawada maasanid walaal macaan ninkii qoraaga ahaa isagoo maalmaha ka mid ah fadhiyo qolku hadii jeer wax ku qori jiray ayaa waxa uu soo qaatay buug iyo qalin waxa uuna ku qoray sida tan sanadkii aynu soo dhaafnay waxaan galay qalin weyn oo aan in badan takhtarka ugu jiray sariirtana u saarnay sanadkii hore waxaan gaaray 60 sano anigoo xanuunsan aabahay waxa uu geeriyooday sanadkii aynu ka soo gudubnay ama sanadkiina soo dhaafay wiil aan dhalay waxa uu ku dhacay imtixaankii uu ku qaadan lahaa shahaadada kulliyadda caafimaadka wiilkaygana markii uu waxbarashada ka haray shil baabuur la soo gudboonaaday awgiis wuxuuna qoraalkiisa ku soo gaabiyay sanad adag oo aan dhibaatooyin badan la soo kulmay ayuu ahaa sanadkii aynu ka soo gudubnay ama aan soo dhaafnay kadib waa uu baxay warqadiina waxa uu uga tagay miiska uu warqada ku dul qorayay waxa soo gashay haweenaydiisii ama ooriyadiisii oo qolka xaaqaysay waxayna isha ku dhufatay warqada uu qoray saygeedu iyaduna waxay soo qaadatay warqad kale waxayna ku qortay erayo waxayna ag dhigtay warqadii uu ninkeedu qoray wayna baxday kadib waxa soo galay ninkii qoraaga ahaa waxa uu arkay warqadan dul saaran warqadii uu isagu qoray waa uu kala furay waxaana ku qornaa sida tan sanadkii hore aynu soo dhaafnay waxaad ka badbaaday qalliin weyn oo lagugu sameeyay oo in badan aad sariirta u saarneed waxaana gaartay 60 sano adigoo caafimaad qaba waxaana heshiis la gashay shirkad weyn oo bugaagta qorta aabbaha wuxuu noolaa 85 sano muddo dheerna wuu caafimaad qabay wuxuuna geeriyooday isagoo xanuun iyo dhib midna aan qabin wiilkaagu wuxuu ka badbaaday shil baabuur uu ku sababsan lahaa in uu geeriyoodo isagoo uusan soo gaarin dhaawac weyn oo aan weligiis ka harin anaha muusan curyaamin qoraalkeedina waxay ku soo gabagabaysay sida tan wuxuu ahaa sanad aynu ka soo gudubnay dhibaatooyin badan ilaahay ayay mahad u sugnaatay subxaanahu wa tacaala ayay mahad u sugnaatay sidaa darteed Allah waxa uu naga mudan yahay inaan u mahad celino had iyo jeer nimcooyinku nagu manaystay qowlkiisa waxa uu ku yiraahday wala in shakartum la asiidannakum wala in kafartum inna cadaabi la shadiid oo micnaheedu yahay haddii aad iigu shukrisaan waa inii siyaadinaya nimcooyinkayga balse haddaad iigu kufrisaan aniga cadaabtaydu waa ay daran tahay sidaa darteed walaal macaan mar walba aan nimco kula soo gudboonaato waxaad tiraahdaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin allow adaa mahad iska leh igu manaystay nimcadan iyo nimcooyin ka fara badan anigoo ah walaalkin Akram Cabdullah iniga tagaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh